haddaan anigu qaabayn lahaa dunida qeybteenna qaxar iyo dhibaatiya malaa qulub ma joogeene qalalaase iyo may jireen qayladhaantani qabqab dhaafe waagii baryaba qiiq ma huriyeen qabiil laguma dhaateen dal aan qaadigii ahay. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا هبين كلا يهبين ذني فرها بدنا إنه سوء مجري عويسك هرجيسة عويسك نوحل عويسك هرجيسة قابتنا نوحل هذا ما حدا أقوانت marka cawayska hargeysa oo ka dhaca maaxda aqoonta ku soo dhawaada mar kale waa habeenkii aqoon-yahanka iyo waxa la yiraahdaa aqoonta guud iyo fikirka aqoon-yahanka waxaana ila fadhiya Cabdiraxmaan Cismaan Gaas ama Xaaji Gaas oo ah martida caawa aynu halkan ugu casuumanahay. Cabdiraxmaan dabcan idinka iska qaybadiyo waa nin reer Hargeysa barigiisii horena geel wadi jiray geel raaci jiray laakiinse imaka wada aqoonta ugu sarreysa PhD-ga ku wada horumarka waara. bal hadda aan Cabdiraxmaan intaan horta wax kale inoo sheegin xagga waxbarashadiisa iyo waxa uu ka howlan yahay wax yar ay nooga taabto intaynan mawduuca galin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. adigu mahadsan yahay waxaan runtii idinka mahad celinayaa idinkana goor hore idinkoo fadhiyaan idin nimi magacaygu waa Cabdiraxmaan Cismaan Gaas reer Hargeysa imika ahay berigii horena nin reemiye baan ahaa waxbarashada la weydiiyey markaa jaamacadayda waxaan dhirtay wax la yiraahdo development studies aan ku diyaariyay shahaado labaad shahaadada imika aan wadana waxa la yiraahdaa PhD Sustainable Development and Diplomacy marka sanadkii saddexaad baan ayaan wadaa waa distance learning waxaan isleeyahay runtii waxa weeyaan area cusub oo aan hore loo baranin caawana marka insha Allah waxaynu si gaar ah u eegi doonaa bal horumarka iyo waxyaabaha saboolnimada laga hortagi karo ama lagu yareyn karo marka assalaamu calaykum. aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan wakaa wuxuu wadaa horumarka waara iyo diblomaasiyadda ayuu inoo cilmi baarayaa dabcan taa qudheedu su'aalo way inooga furnaan doonaan laakiin caawa wuxuu marti inoogu yahay inuu inala wadaago dabcan cilmi baaristiisa wax xiriir si ula leh oo ah hanaanka dhimista saboolnimada. suurtagal ma tahay in la dhimo saboolnimada haddiise way suurtagale halkee baa loo marayaa ama hanaankee ayaa loo marayaa sidaynu ogsoonahay markii ay la gaadhay sanadkii 2000 taariikhdu markay ahayd waa waqti hadda laga joogo 19 sano waa tii adduunku uu dejiyey ahdaaf iyo goolal kala duwan oo la doonayay in saboolnimada adduunka lagu yareeyo. marka Cabdiraxmaan dabcan saan u fahmay isaga inooga warrami doona hawshaas ayuu goor hore la jaan qaaday waxaan inoo hayaa tusaalayaal camaliya marka mawduuca maanta waxa uu ka hadlayaa waxa weeye hanaanka dhimista saboolnimada marka nin walba qalinkaaga iyo buugaaga qaado waa intaas soo aynu ku guuleysano inaynu saboolnimada dhinne insha Allah soo dhawaad Cabdiraxmaan. mar labaad assalaamu calaykum waxaynu runtii eegi doonaa saboolnimadu maaha wax cusub oo aynu caawa inagu qeexidu samaynayno waxa weeyaan mushkilada dunyada dhanna soo wada martay adduunyada badhna uu ka qalin jabiyey qaarkoodna weli la halgamayaan haddaynu halka ugu kooban ka qabanno waxa weeyaan adduunyada waxaa lagu yidhaahdaa waa 7 bilyan iyo dheeraad imika waxaa la rajeynayaa 2020 hadday dhammaato inay 2 bilyan 7 bilyan iyo badh ay isxidhaan marka 7 bilyan iyo badhka adduunyada ku nool bilyan iyo badh ka mid ah
ayaa saboola ama saboolnimada halka ugu hooseysa ku nool. marka adduunyada qorshaheedu wuxuu ku wajahan yahay inaynu u fikirno qorshe u sameyno ama istaraatiijiyad u sameyno malyuun iyo barkaas siday saboolnimada uga bixi lahaayeen. runtii wadada saboolnimada lagaga baxaana hal wada maaha. hal wadan siduu uga baxayna waxaa laga yaabaa inaanay wadamada kale oo dhan aanay buuxin. marka wadanba inuu dhinac uga soo dabaashay. inagu maanta waxaynu markaa ku koobnaan doonaa inaynu eegno ajandihii adduunyadu ay u dhigtay in saboolnimada lagaga baxo 2000 ee soo bilaabmay 2000 ku dhammaanayay 2015 iyo kii cusbaa ee ka soo bilaabmayay 2015 dhammaan doonana sida la rajaynayo 2030. intaasaynu eegi doonaa bal ajandaha intii saboolnimada khuseysay waxay ahayd. waxaynu si gaara iyadana usoo qaadan doonaa runtii mid ka mida mashaariicda loogu talagalay in saboolnimada lagu dhimo oo adduunyada xoog uga shaqeeya. waddankeenana 6 sano ka hor laga bilaabay iyo ilaa hadda waxa uu ku guuleystay ama halka uu marayo. markaa si aynu ula jaan qaadno haddii uu guul yahayna inaynu xoojino, hadday wax ka dhiman yihiin inaynu ku biirino. 2000 adduunyadu intay isku timi ayaa waxa la sameeyay wixii la oran jiray yoolasha 1000 sano ama Millennium Development Goals. 8 gool bay ahaayeen. hal gool oo kamid ah runtii wuxuu xoog ka saarayay saboolnimada. waxa la doonayay markaa ajanduhu ahaa adduunyada dadka saboolka ah maanta saboolka ah ama 2000 saboolka ahaa in nus la jaro 2015. marka yoolasha la eego siday u shaqeeyeen runtii waa lagu guuleystay ama ajandaha waa lagu guuleystay. nus iyo ka badan ayaa saboolnimadii markii 2015 la gaaray ka baxay. laakiin tiradaasi waxay ahayd tiradii maalinta saboolka ahayd. nus intaa u dhigantay in leeg ayaa dib sabool u noqday oo iyaga laftoodii sabool ahaa. dabeetana adduunyadu waxay ka fikirtay maxaynu arrintii hore ka bedeli karnaa. 2 shay baa hoosta laga xariiqay. ajandaha hore markii la dejinayay cidda fadhiisatay ajandaha dejisay waxay ahayd wadamadii horu maray oo miiska waxa ka maqnaa wadamadii soo korayay. dabeetana waxay qorshe u sameeyeen kuwan tuugsanaya ee saboolka ah ee magaranaysa mashaariicda la wareegaya inay bal qorshe u sameeyaan ay ku caawiyaan oo saboolnimada kaga baxaan. istaraatiijiyadda ay u hayeenna waxay ahayd intay iyagu kaga baxeen. marka qoladan lamaba weydiinin idinku maxaa qorshe idin ah ama sidaad u arkaysaan in saboolnimada kaga bixi kartaan. arrintaas runtii waxay ahayd dhaliisha ugu weyn ee ay lahaayeen Millennium Development Goals. 2015 ajandaha la dejiyay waxaa la dhahaa Sustainable Development Goals. ama waxaynu af Soomaali ahaan aynu ku sheegnay yoolasha horumarka waara. waxa weeyaan 17 yool 230 indicator iyo 169 bartilmaameed oo la rabo in la xaqiijiyo. 2 yool oo kamid ah gaajada iyo saboolnimada la xiriiraan. maanta adduunyada malyuun iyo badh dad ku dhow ayaa sabool ah. inaguna halka ugu sii hooseysan waliba kaga sii naalna dadka saboolka ah. maanta markaa inaga waxay noo yaalaa waxa weeyaan inaynu isweydiino sidee baynu saboolnimada ku dhimi karnaa. wadamada la yiraahdo Sub-Saharan Africa waxa la yiraahdaa 66% dadkoodu saboolnimada halka ugu hooseysa ayay ku jiraan. marka waxaynu u baahannahay inaynu isweydiino maxaa shaqeyn kara. 2012 hay'adan ka shaqeynayay ayaa qolo nala shaqeyso oo Jarmal ah ayaa waxay la soo wadaageen aragti ama concept laga sameeyay sida dadka saboolka saboolnimada looga saaro. marka waxay u dhahaan wadankiina ma ka shaqeyn karaa 7 cisho gudahoodna noogu soo jawaab. markaan akhriyay ee rogrogay ee dhinac walba ka eegay waxa ii soo baxday concept-ku wuxuu weeyay dadkan shilin la siin maayo
lacag la siin maayo raashino la siin maayo alaab kalena loo keeni maayo laakiin inta loo tago ayaa lagu odhanayaa 20 isu urursada oo toddobaadkiiba mar kulma oo lacag dhigta oo dabeetana qof kasta oo kooxda ka midi fikrad ganacsi ha la yimaado fikradaana waxa laga maalgelinayaa wixii yaraaya aad dhigateen dabeetana haddana dadkeenii baan saa u eegayo waxaa ka soo horeysa maxaad noo sidaa maxaad nagu caawinaysaa maxaad nagu soo qaadatay ayaa dadkeenii ka soo horeysa marka qoladii waan ku warceliyo waxaan ku yiri ka shaqeyn maayo waddankayaga iskala noqda waxay u yiraahdeen bal cid kale la wadaag 2 nin oo kale aan runtii la wadaagnay iyaguna sidii si leeg soo dhawaad iyaguna sidii si leeg ayay ku soo jawaabeen ma shaqeynayso saddexdeedii waa nala kaxeeyay dabeetana waddan uu ka shaqeynayay baa nala geeyay waa waddanka ugu dhow runtii laga yaabay in waxyaabo qaarna wadaagno waa Ethiopia waxaanu soo aragnay dad social contraction-kooda ama sida isugu xiran yihiin bulsho ahaan uu inaga liito oo qofku hadduu gaajoonayo aanu albaabka ku xiga garaacin oo aan isu wareegin shalayto rajo la'aan ku noolaa maanta laakiin rajo ku nooloo qof kasta fikrad ganacsi ka fikirayo qaarna fikrada ganacsi la yimaadeen qaarkood qani yihiin oo maanta ganacsata waaweyn ay yihiin dabeetana waxaanu isweydiinay inaga talow ma isaga bareernaayo ma ka hirgeli karaa waddankeenii halkan markanu soo noqonay markaa waxaanu la tashanay runtii dad fara badan si taxadir la qoladii waxaanu ugu warcelinay bal waanu eegaynaayo waanu tijaabinaynaa inuu shaqeeyo meel yaroo koobanna waanu ku tijaabinaynaa waxaa naloo soo diray nin khabiiro hindiya markaa conceptkan wuxuu ka bilaabmay hindiya 1983 muddooyin badan buu shaqeynayay wadamo badan markaa 13 waddan buu afrikana ka shaqeynayay latin america asia meelaha ninkiina loo soo diray ururada bulshada rayidka ah kuwa localka waliba ayaanu casuunay wuu sharaxay dabeetana wuxuu ku yiri ururka ku qanca inuu fuliyo macnaheedu waxa weeyaan ururku lacag ka heli maayo waxa la rabaa inaad dadkaaga ku celiso wax oo aad fikradii ka dhaadhiciso oo abaabusho oo adigana laga bixiyo qofka fikradda ka dhaadhicinaya uu mushaharkiisa wax kale laga bixin maayo dabeetana 12 urur baa ku qancay xafiiskayga markaa noqday xafiiska xiriirinayay magaranaysaa 12 kan urur iyo tababaradii iyo magaranaysaa monitoringkii iyo wixii la halmaalayay waxaanu ka bilownay gobolka Maroodijeex iyo gobolka Togdheer 5 sanadood baa contract nala galay 5tii sano markay dhamaadeen 2018 baa dib naloogu soo diray koox balna eegtadii waxaanu guul gaadhnay iyo waxay garanaysaa halkan ka soo beedbeednay intaan kooxda aanan gelin warkeeda waxa ku jira walax yar oo aan inaga dhaqan ahaan iyo diin ahaan midna aynaan garanaysaa aqbali karin oo ah qofku markuu lacag ka qaato kooxda uu ku soo celinayo waxa la rabaa inuu interest soo celiyo ama uu wax saaro lacagti ribo uu soo celiyo dabeetana qoladii waxaan ku leeyahay bal inta waxaan fahmayno isaga laftiisa baanu dee ma garanaysaa ay ka shakisanahay bal horta ribadan 2 sano dib noogu dhiga 2 sano dib noogu dhigay 2 sano markay dhamaadeen waxaan filayaa 2015 akhirkiisii bay ahayd ayaana lagu yiri haye waxaan ku leeyahay wadamada muslimka aan soo eegno sababta wadamada muslimka ee approach kale ama hab kale leeyihiin oo la yiraahdo service charge waxaanu eegnay Pakistan Afghanistan waxa kale oo aanu tagnay Ethiopia qaybtan oromada muslimka ah waxaanu soo aragnay runtii inaan ku qanci karin oo ay tahay uun ribo wax u eeg oo magac laga yiri bedelay waxaanu ku leeyahay kuma aan qancin ka warrama haddii aanu culimadeeda u bandhigno oo culimadeedu wixii ay ka yiraahdaan marka aynu ku dhaqno waa hagaag weyn ugu yiraahdo waxaanu u tagnay maxkamadda Sheekh Dirriyo waxaanu ku nidhi mashruucaas aanu haynaa dadka dan yartaa ee 20 ka uu isku xiraa lacag bay dhigtaan fikrada ganacsi bay la yimaadaan qof kasta ganacsi buu gaar u leeyahay buu samaystaa walax yar baa laakiin ku jirta
waxa kale oo principalka ka mid ah inaan calaamad hay'adeed dadka loola tegin inaan lagu odhanin hay'ad heblaaya ay sukin keentay oo waxaan idin qabanaysa sheekh dirriye markaan u tagnay waxaan ku nidhi sheekh faa'iidadaas baanu ilaa hadda ka haynaa approachkan laakiin walax yar baa ku jirtee walaxdaa yar baan u baahnayna musliminsaan yaa walaxdii waa maxay bay yidhaahdeen waxaan ku nidhi qofkii markuu kooxdii ka qaato lacag waxaa laga rabaa inuu yar soo raaciyo intaa yar waanu diidnay ilaa hadda maanaan aqbalin wax islaamku ogol yahay oo intaa yar u dhigma la kaalaya culimadii waxay yidhahdeen calaamad hay'adeed loola tegi maayo miyaa loola tegi maayo oo waxba hay'ad baa idiin timi lama odhanayo markani waaba kaynu gaalada kaga maarmaynay bal aanu isku noqonnay iska tago oo 7 cisho ka bacdi noo yimaada bay intaanay 7 cisho gaarin bay nala soo hadleen annagaa maalintii hore ku nidhi 2 saacadood albaabka noo yar xidha aanu idiin sharaxnay iyaguna saacad bay noo xidheen maalintii dambe waxay runtii culimadu la yimaadeen concept islaamku ogol yahay oo la yidhaahdo mushaaraka mudaaraba oo ah qofkii halkan uu ka lahayn kooxdii buu lacag ka amaahanaya waxa loogu bedelayaa kooxdii qof hebel bay maal gelinaysaa wixii faa'iido uu keenana waxba lagu leeyahay oo iyaga ka heshiinaya inta kala qaadanayaan wixii uu khasaaro keenana waa la wada leeyahay approachkii 2018 markuu dhamaaday baa dib loo qiimeeyay wuxuu kugu soo gabagaboobay 23,000 oo qoys ayaa maanta ka tirsan approachka aynu u bixinay dan wadaag 23,000 ee qoys 18,000 in ka badan ayaa ganacsi ay gaar u leeyihiin ka samaystay 18,000 in ka badan ayaa ganacsi ay gaar u leeyihiin habkan dan wadaag ka samaystay oo aanay cidna u maalgelin dowladna u maalgelin hay'ad kalena u maalgelin iyagu lacagtoodii yareeday urursadeen ee ay dhigteen ayay lacagtaa ka samaystay inta kalena rajay leeyihiin inay ka samaystaan markii kale la qiimeeyey waxyaabaha yaab kale wuxuu noqday Ethiopia oo kale markaanu booqanaynay 10 sano jireen Kenya 10 sano jiray iyo koodii oo markaa 15 sano jiray baa la isku barbardhigay maanta waa 17 baa leeyahay taasi waxay ahayd waxyaabaha yaab kale ee ah Soomaalidu laba arrimood labadaba Ethiopia way kaga firfircoon mid waxa weeyaan xaq qofku isaga iska marka horeba iska diyaarsan inuu hadlo inuu ka qayb galo inuu participation sameeyo marka social empowerment xagga Soomaalidu waa very high xagga entrepreneurship ama in qofku fikrad keeno oo ka shaqeysiiyo oo xagga ganacsigana way ka horeeyaan lacag 4 milyan ka badan ayay dadka masaakiintii urursadeen 4 milyan oo dollar ayay dadka masaakiintii urursadeen oo ku dhex wareegayo 18,000 ee ganacsi ee ay iyagu samaysteen ku dhex wareegaya approachka waxa loogu talagalay 3 shay koowaad waxa weeyaan economic empowerment in dhaqaalaha dadka waliba masaakiinta poor of the poorest sare loogu soo qaado hab waliba sustainable oo aan ahayn hay'ad heblaaya idin keento markay baxdayna intii yareed baa kala goosateeno halkii bay ku baabaaday ama ajandaha labaad ee laga leeyahay waxa weeyaan in social empowerment lagu sameeyo dadkan inay bal ka fikiri karaan waxa iyagu leeyihiin hibadoodii aragtidooda lacagtooda dabeetana waxa ay qabsadaan inuu noqdo wax ku suntan hibadoodii aragtidoodii aanu noqonin wax cid u keentay ama hay'ad ku tirsan approachkan marka la eego ilaa hadda maadaama 40 sano in ku dhow adduunyada ka shaqeynayay wadamo fara badan oo Hindiya ugu horeyso ayaa saboolnimada ku dhimay Hindiya maadaama dawladdu weyn tahay dawladdu way daristay dabeetana bangi dhan ayay u furtay oo regulate gareeya
dadkan masaakiinta lacagta yaray dhiganayaan ee kala amaahanayaan ee ganacsiga ku sameynayaan ee isu celinayaan ee wareegaysa waxa kale ku dartay national strategy ama habkii qaran ee lagu dhimeeyay saboolnimada Ethiopia oo kale dawladdu runtii way aqoonsan tahay laakiin maadaama dawladdu aanay saa u furfurnayn shuruucdii wadanka iyo bangiyadii wadanka lama waafajin waxaynu markaa Soomaali ahaan ama reer Somaliland ahaan aynu runtii soo kordhinay waxa weeye approach-kan waxaynu ku darsannay mushaaraka mudaaraba globally yani adduunyada muslimka ah maanta hadday rabaan inay self help group ama dan wadaag ay qaataan Somaliland baa u ah meesha laga baranayo mushaaraka mudaaraba marka qoladii promote gareynaysay concept-ka ka shaqeynaysay waxay yiraahdeen wadamada dambe ee muslimka ah ee aanu rabno inaanu ka hirgelino idinkaanu idinkeeni doonaa idinka haydu soo booqdaan marka kaasi wax weyn contribution aynu inuu global approach ku darsanay Somaliland marka labaad waxa la inagu sii abaalmariyay isagana maadaama 5 sanadood oo uu waliba cusbaa oo 18,000 oo ganacsi in ka badan sameeyay in 7 sano oo cusub la inoogu daro oo dabeetana across the country wadanka oo dhan aynu ku baahino marka 2020 laga bilaabo waxaynu rajaynaynaa inuu wadanka oo dhan ka qayb galo sidoo shaqeynaya marka waxa weeye sidoo shaqeynaya marka waxa weeye 20 qof oo derisa oo isku xaalada homogeneous ayaa isu imanaya toddobaad kasta way kulmayaan ajandaha kale ee kulankooda u yaala waxa weeyaan in xaaladda uu qof kasta ku sugan yahay iska wareystaan lacag baanay dhiganayaan toddobaadka saving meesha xisaabnadu ku jirtaayo lacag kasta oo ay dhigtaan waa la qorayaa lacag kasta oo ay bixiyaan ama ay ganacsi galiyaanna waa la qorayaa lacag kasta oo kooxda soo gasha kooxda wada leh haddii laga amaahdana waa loo soo celinay marka inta badan waxa practical noqotay inay xagga dumarka ku wanaagsantii oo raggii inta badan bilaabay raggu way ka degdeg badan yihiin dumarka not inaga qurana ma ahay waa adduunyada oo dhan raggu waxay jecel yihiin lacag buuran dhigtaan lacag buuran qaataan arintana markiiba kala tuuraan dumarku laakiin way ka samir badan yihiin dumarku waxa laga yaabaa lacag yar bay dhiganayaan in yaroo biilka ka soo hadhay dabeetana intii yareed bay wadayaan in yar bay amaahanayaan intii yareed bay haddana soo wareejinayaan ganacsi yar bay bilaabayaan way u samrayaan way ka samir badan yihiin ragga marka inaga Somaliland ahaan 4 group oo raga ayuun baa samaysmay laakiin 1300 oo group ka kooban yahay oo inta kale waa dumar marka halka waxa ka soo baxay in raggu Soomaalidu uu ka degdeg badan yahay ama aanu ku habboonayn approach-kan inuu samaysto waxyaabaha loogu talagalay waxa kamid ah rag iyo dumar ma wada samaysan karaan marka raggu gaar bay u samaysanayaan dumarkuna gaar bay u samaysanayaan da'da lafteedu waa waxyaabaha la eego dumar yar yar iyo dumar waaweyn inta badan la isku ma daro sababtoo isku fikir maaha isku aragti maaha inta badan dadka da'doodu isku dhowdhowdahay xaaladahoodu isku dhowdhow yihiin ayaa is qaban kara marka gruubadii ragga ahaa imaka 2 gruubo kaliya ayaa ka soo haray hal gruub waa Hargeysa waa Maxamed Mooge hal gruubna waxa weeyaan gobolka Togdheer waa tuulada Beer la yiraahdo ragga intii kale way socotay approach-kaasi Somaliland wuxuu ku soo kordhiyay in dadku iyaga oon dibadda waxba uga baahnayn ayaga oon taageero dibadeed raadsan ama hay'ad aan raadsanin in ay iyagu samaysteen dhaqaale ay leeyihiin oo iyagu isugu mahadnaqaan oo cid kale u daba fadhiisanay approach-kaasi runtii waa mid ka mid ah waxyaabaha saboolnimada lagu dhimi karo waxyaabaha aynu u baahannahay waxa ka mid ah in dawlad ahaan systemka dawliga ah in la dhexgeliyo oo dabeetana uu noqdo wax dawladuna aqoonsan tahay mashaariicdana oo dawladdu la wareegto
aakhirka xataa wadamadan kale ee adduunyadii hore looga soo bilaabay marka loo bilaabay in muddo a gaadhaan dowladda la wareegta dabeetana national budgetka ayaa xataa sii fidintiisa ayaa lagu daraa oo qaarkood oo kuwa bangiyada u sameeyey marka kulli su-aaluha ayaynu wixii kale ku kala gargarayn doonaa intaasaan inta hore kusoo koobi lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ما شاء الله عبد الرحمن عثمان قاس aad buu mahadsan wax cusub oo inagu soo kordhiyay runtii oo lagaga bixi karo faqriga in maaragtay durba ay qoysas wada faqri ahaa ay 4 milyan oo dollar abuureen oo hadii kale aan abuurmeen horta marka hore si Cabdiraxmaan waad mahadsan tahay su'aal baan ku weydiinayaa ugu horeysa oo ah saboolnimo ayaynu ka hadlaynaa adduunkuna waa kaasoo in nus laga dhigo saboolnimada ayuu go-aan ku gaaray 2000 sanadku markuu ahaa maxaa lagu cabiraa ama miqyaasyada saboolnimadu waa maxay caalami ahaan inagu si heerkeebaynu kaga jiraa markaad eegto Soomaaliland ahaan saboolnimadu sideedaba adduunyadu waxay isla garatay inay tahay uun in la cabiro qofka lacagta soo gashay inta leegto ama maalintii inta uu ku nool yahay inta leeg tahay waxa la yiraahdaa 1.25 dollar haddii ay ka yar tahay lacagta soo gashaa maalintii qofka waa $1 iyo rubuc dollar miya ha $1 rubuc dollar waxa weeyaan sabool marka waa aragti guud oo adduunyadu wada qabto imaka aragtiya waxyaabo fara badan oo imaka ka soo horjeeda ama dhaliila baa jira nin odayo dhaqaalayahan oo Swedish oo la oran jiray Hans Rosling wadankiini baa Soomaa runtii fikradda aad buu uga soo horjeestay wuxuu leeyahay yeynaan u eegin lacagta 1.25 dollar wadamada qaar bay wax fara badan goysaa qaarna de koob shaha ma goyso marka aynu ku eegno xaaladda wadankaasi wadankaasi yahay ama xaaladda wadanka marka la eego qofku subaxii quraac ma hela ha okay biyo cabba ma hela ha qada fiican ma hela ha okay nusacana doon u heli kara waaya casho ma hela saddexda hadduu helo poor of the poorest the bottom billion kuma jiro saddexda hadduu mid kamida waayo kuwa ugu liitu ku jira marka qaar baa jira saddexda mid kamida hela ama saddexdaba way helaane subaxii waxa laga helayaa boorash aan la dul qaban ayuu subaxii ku quraacday qadadiina waxa laga yaabaa boorashkii baa lagu celiyay cashadiina tii baa lagu celiyay qofkaasina waa xaalad kale soo maaha saddexdiiba wuxuu cunay maxay boorash madow qofkaas waxa weeyaan the poor of the poorest marka waxa la eegaa qofkaas saboolka aynu ku sheegaynaa lacagta maalinlaha soo gasha adduunyada 101 wadan oo kamida ayay dadkaas saboolnimada ugu daran ku nool ay ku jiraan marka waxa weeyaan adduunyada waa 124 wadan Soomaa 194 wadan weey 194 ka 101 wadan oo kamida ayaa low income countries ka maxaa soo haray 80 Soomaa dhowr iyo 80 ama 90 wadan waxay u kala qaybsan yihiin middle income countries iyo high income countries Soomaa marka wadamada dakhligoodu sareeyo inta badan 19 wadan ayaa la yiraahdaa the richest countries in the world inta kale waxay u badan yihiin wadamada dakhligoodu dhexdhexaadka yahay inagu waxaan ku jirnaa marka 101 kaynu ka midnahay horta xagga loo badan yahay Afrikana waxaynu nahay wadanka afraad ee ugu faqiirsan hadda Soomaaliland baa sheegaya ogaad walow aynaan haynin xisaab dhab ah ama census dhab ah oo aynu ku cabirno heerkeena nolosha laakiin waxa la yiraahdaa 380 hadii la eego lacagta Soomaaliland oo dhan soo gasha ama dhex taala hadii shacabkeeda loo qaybiyo $380 baa qofkii Somalilanderka ku hagaagaya sanadkii waa GDP-gii marka wax la isu barbar dhigay saddex wadan oo Afrika kamid ah ayaa inaga sii hooseeya
marka inagu waddanka afraad baynu nahayo maadaama xagga hoose laynaga xigo waxaan filaya inay waxoogaa yara aan yara xajisan karno marka ma xumin si kale marka loo eego wadamada waddan kastaaba faqriga wuu ka bixi karaa laakiin fursad intee leeg waad haysataa inaad faqriga kaga bixi karto marka fursadaha la eegayo geeska Afrika meelaha ugu fursadaha fiican weeyaan waxa la eegayaa imise khayraad ku dihin kuwan imika inuu ku sheegnay inagu nimca fadhida Soomaa imise khayraad ku fadhiyo hadii la dhaqaajiyo aad faqriga kaga bixi karta shiidaal ma heli kartaa wax soo saar ma heli kartaa beer ma heli kartaa badda wax ka soo saari kartaa yani marka la eego waxayna hoos yaala wax badan baynu haysanaa qani bayna laakiin waana inoo bislayno maanta waxaanu kaga noolnahay $380 qofkii afartaad dalan saddexaad dalan u faanay waa ku minooshi kartaa aad buu u mahadsan yahay Cabdiraxmaan runtii waxyaalo badan ayuu halkan inoogu soo gudbiyey marka aan horta idinka idin siiyo hadda wax su'aalaha qabtaan ama wax faala insha Allah